maalin qura ismaan oran maankaygu may gelin soddahbaa midiyo gelin gabadheeda mudanihi marwo ay u noqotoy maalin ceesh wadaageen inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waxa la yaab igu abuurtay waxa la yiri nin noolow maxaa aragtay ku laaban waxaan maqli jiray nin noolow maxaa aragtay ku laaban wiilkan aad arkaysaan sawirkiisa ilaahay ha u naxariista uu dhintay waxaase la yaab leh waxaa dilay oo midiyo geliyay waxaa dilay oo uu sababsaday sodahdii macnaha gabadhii uu qabay hooyadeed ayaa dishay gabadhii uu qabay hooyadeed ayaa dishay waa arrin la yaab leh waa wax anigu intaan jiray dhaayana aan u arag dhagna aan u maqal dhaayana uma arag dhagna uma maqal sodah wiilkii ay sodahda u ahayd ee waxa weeye gabadheeda qabay dishay ama jareexaysay xitaa sodah waxa weeye wiilkii ay sodahda u ahayd ay is afgaareen ama is caayeen xitaa anigu ma maqal laakiin arrinkani waa arrin la yaab leh waa arrin uguba laakiin marka loo eego waa arrin uguba markase loo eego waxyaabaha ka dhacayay dalkeena xaaladaha la yaab kale maalinba maalinta ka dambaysa soo kordhayay xaqiiqdii waxaad is leedahay ma ahan wax lala yaabo oo waa wax la filayayba inay dhici karaan waayo waxaynu aragnay nin xaaskiisii dilay sidoo kale waxaynu aragnay gabar waxa weeye saygeedii dishay sidoo kale waxaynu aragnay waxyaabo badan oo la mid ah arrinkaasi asbuucyo ka hor ayay ahayd markii xamar laga soo tabinayay nin dilay xaaskiisii hore ee uu furay iyo hooyadeed macnaha xaaskiisii hore sodahdii iyo xaaskiisii hore ayuu hal gooba ku dilay oo uu ku toogtay arrinkan markaa waa arrin la filan karayay arrintani ayaa waxay ka dhacday magaalada Boosaaso wiilka waxaa leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto jannadii udgooneedna ilaahay ha geeyo kitaabkiisana gacanta midig Allah ka siiyo isagu maanta waa uu geeriyooday ilaahay waxaan kaga rajaynaynaa isagu maanta wuu geeriyooday waxaan ilaahay kaga rajaynaynaa inuu jannatul firdaws al-a'la uu geeyo sodahdiisa wiilka dishay xaqiiqdii dadku way isdili jireen laakiin dilka ayada ay ku ilhaanowday waa wax ugub ku ah ummadda Soomaaliyeed ayaduna caawa xabsi ayay ku jirtaa oo culays ayaa haya hooyada Soomaaliyeed ee wiilkii sodahda ay u ahayd dishay maanta waxa haysto afar culays waa culayska koowaad ayaa waxay ku jirtaa xabsi oo waxa weeye nolosheeda caawa ayaa waxay ku jirtaa xabsi oo xornimo ma haysato oo dhibaato ayay ku tahay taa nafteedu tan labaad waxa weeye qof muslim ah ayay dishay oo dhiig muslim ayay gashay oo qof ayaa darteed waxa weeye god u galay tan saddexaad waxay tahay gabadheedii ay dhashay indhaha ma siin karto oo waayo waxay dishay saygii ayay ka dishay oo waxa weeye gabadheedii indhaha ma siin karto oo saygii ayay ka dishay tan afraadna waxay tahay gabadha wiilka qabo waxa la yiri uur bay lahayd hadii gabadha berita ay dhasho cunuga ayayda ay u tahay laguma aamini karayo intuu yar yahay hadii uu koro ee uu weynaadana waxa weeye uqdad iyo calooliyo ayuu ku noolaanaya oo waayo ayayda ayaa dishay la leeyahay aabaha oo xogta waa uu helayaa oo xogta si fudud ayuu u helayaa waa tahay laakiin arrimaha noocaan ahi ee dadka yaga iyo deegaanka yaga ku soo badanaya oo maalinka ka dambeeya wax aad la fajacdo oo aad la yaabto oo weliga aadan maqal ama aadan arag waxa weeye ay dhacayaan maxaa keenaya laba arrimoodba laba xaalba waxaan isleeyahay arrimahani waxa weeye waa sabab waa midda koobaad waxa weeye waxa badatay dunuubti ayaa badatay fisqigii ayaa batay dunuubteeni ayaa badatay fisqigeeni ayaa batay hadii marka dunuubta ay fisqiga ay badato intii samaynaysay kaliya kuma ekaanaya cinqaafta waxa weeye dunuubta iyo fisqiga kuma ekaanayo ee waxa weeye
dadka dhan ayuu camimaya oo dadka dhan ayuu gaaraya marka dunuubta dhaxdeena dhiigi muslimka oo xaqdarro loo daadinaya wadankii cadaalad ka jirin dadka waxa weeye qabyaalad iyo balaayo iyo faquuq iyo dhibaato isku hayo dunuubtiyada ayaa badatay taa waa sabab oo dunuubtiyada badatay fisqigi ciqaabihiisi waxa weeye ciqaabaadkiisi ayaa ina hayo waa la oran karaa mid kale jirto waxa weeye waxa la yiraahdaa social media iyo internetka waayadii hore waxyaabo way dhici jireen waayadii hore waxyaabahan wax la mid ah ama ku waayadii hore waxyaabo way dhici jireen laakiin hadda wixii dhacaba waxay noqdeen dadku waxay ku wada nool yihiin dadku waxa weeye galaas qura ayay ku wada jireen dadku galaas qura ayay ku wada jireen waa dad hal meel wada jooga dad wada jooga way dadku ma kala maqna qof walba micnaha maanta qofkii dadku ma kala maqna maanta hadii ay wax yar dhacaan oo waxa weeye ka gees Soomaaliya raaska casayr ilaa raaska boole ay wax yar ka dhacaan cid walba way ogtahay qofkii gees kale jooga oo ogyahay kan qurbaha jooga oo ogyahay kan dalka jooga oo ogyahay kan dalka jooga oo ogyahay kan qurbaha jooga oo ogyahay kan waxa weeye caasimad degmo iyo tuulo meel walba waa laga ogaanaya waxaana fududeynaya waxa uu keenaya waa internetka oo waxa weeye xaalad walba dhacda internetka ayaynu kula soo oradnaa xitaa waxa weeye waayadii dambe internetka wuxuu noqday maxkamado labadii qof oo waxa weeye xitaa isqabsada ama labadii qof oo waxa weeye in yar ismaagto labadii ismaagto ama waxa weeye in yar iskhilaafto ama labadii waxa weeye ismaagto ama in yar iskhilaafto waxa weeye khilaafkoodii iyo dhibaatadoodii social media ayuu dhaqso imaanaya marka waxa weeye arrimaha noocaan ahay ee maalinka ka dambayso hadda anigu ma garanaya wax isleeyahay waxyaabaha noocaas dalkaaga waxyaabaha noocaas Soomaalida kama dhacaan anigu hadda ma garanaya waxaan isleeyahay waxa noocaan ah talow ma dhicin tan kaliya islaha talow ma dhicin waxa weeye wax haray male kaliya waxa la sugaya hadda kaliya waxa suurtagal oo waxa weeye hadda aan wali maqlanu nin sodogo gabadhu sodogo waa dilay taana waxa laga yaabaa inay iska timaadaba waayo qaabkay wax u socdaan siday wax u dhacayaan iyo sidaynu nahay waa xaalad kale umadayaga waxa weeye qalbigeeda Ilaahay isu dumo dambiga iyo dunuubta faraha aan kula jirnana waxa weeye Ilaahay dambi dhaaf hay naga siiyo oo qalbigeena xaq iyo wanaaga Ilaahay hayna tuso wiilka miskiinka ah waxa weeye geeriyoodayna Ilaahay ha u naxariisto wiilka miskiinka waxa weeye wiilka miskiinka geeriyoodayna Ilaahay ha u naxariisto jannatul firdaws al-a'la Ilaahay ku casuumo ha geeyo aad baadin salaamaya waxa weeye YouTube-ka noo subscribe gareeya YouTube-ka ilmaada rayaal aad buu noogu jifaa bilahani noo subscribe gareeya oo like ta saara oo waxa weeye muuqaal meel fog inoo gaarsiiya aad baadin salaamaya